bismillah kan waxaan ku xigsiinaynaa markaasi casharka ka igu xiga wax loo yaqaano ifconfing command loo yaqaano ifconfing marka waxaan leeyahay ifconfing isagana waxa lagu eegaa dhammaan ay badalasyada computerku haysto dhan marka ifconfing haddaan idhaahdo wuxuu la mid yahay ipconfig anigoo windowska caadiga ah idhaahdo ipconfig haddaan windowska caadiga ah idhaahdo waxaa ii soo baxaya ay badalasyada laakiin if uu isaga la odhanayaa waxa weeyaan internet interface-ka iyo tools configuration-kiisa marka ifconfig ayaan odhanayaa inter baan leeyahay ifconfig waxaan arkaya inaan iigu jirin marka hal daqiiqan ku shubayaa marka waxaan leeyahay sudo anigoo stepska maraya waxaan leeyahay markaasi sudo okay install netstate sidaynu maalmo hore soo tilmaanay sidan ayaynu ugu shubaynaa markaynu wuxuuna weydiinaya passwordkeedi waa very secure lineagasku passwordkii waynu weydiinaya markuu passwordkiina weydiiyo wuxuu leeyahay waxaa kusoo biiri doontaa 819 kb oo additional hard disk ayaa kusoo biiri doonta waayo installationku intaasuu qaadanaya hadda marka haddaan idhaahdo ifconfig haddaan idhaahdo waa inuu siiya markaasi hold the informationkii ib minus a ama ib a siinayay ama ib minus 4 iyo 6 bay siinayay ayuu halkan igu siinaya waxaan haysta marka internetkii ib addresskaygu waa kan net maskaygu waa kan ama subnet maskaygii dabeetana informationkii oo dhan waa ku sidoo kale halkan waxaa ku jira loopback interface-kii baa ku jira marka sidaas ayaa lagu ogaadaa ib addresska computerka ifconfig ayaa markaa lagu ogaanaya si dhex keli mayno oo ifconfig optionna kala kusii dhex jira oo haddaan idhaahdo for instant man if config haddaan idhaahdo for example for full information baan halkan ka helinaa la xidhiidha marka hadda for testing purpose and for simplicity purpose aynu kooraska simplify garaynayno halkaasaan kusoo